21 أكتوبر 1969 lix maalmood kadib dilkii madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaake ciidankii Soomaaliyeed ee uu hogaaminayay General Maxamed Siyaad Barre ayaa si nabad ah u qabsaday xukunka. Dimuqraadiyaddii 9 sano ahayd ayaa dhamaatay. Waxaa dhashay kacaankii Soomaaliyeed. Siyaad Barre wuxuu ku dhawaaqay inuu dalka ka saarayo musuqmaasuqa, qabyaaladda iyo dib u dhaca. Waxaa bilaabmay xilli cusub oo ay jirto rajo, horumar iyo cadaadis isku dhafan. Maanta waxaa si qoto dheer ah oo faahfaahsan u eegaynaa 8 sano ee ugu horreysay ee taliskii Siyaad Barre. Laga bilaabo kacaanka, hanti wadaagga sayniska, qoraalka farta Soomaaliga, ololihii wax akhriska iyo abaarihii 1974 ilaa 1975. iyo dhacdadii ugu xumeeyay ee 1975 waa toogashadii 10 culumo ee ka soo horjeeday xeerkii qoyska. subaxnimadii 21 Oktoobar 1969 ciidanka iyo booliska waxay qabsadeen xarumaha ugu muhiimsan iyagoo aan dhiig ku daadin. Siyaad Barre oo ahaa taliyaha ciidanka ayaa noqday gudoomiyaha golaha sare ee kacaanka. dastuurkii, baarlamaankii iyo xisbiyadii siyaasadeed ayaa la laalay. dalka waxaa loo bixiyey Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliyeed. Master Barre wuxuu sheegay in kacaanku yahay mid lagu soo celinayo sharciga, laguna ciribtirayo musuqmaasuqa iyo qabyaaladda dowladdii hore. bilowgii dad badan ayaa taageeray, laakiin waxaa si degdeg ah loo sameeyey cadaadis. madaxdii hore sida Maxamed Ibraahim Cigaal iyo kuwa kale ayaa la xirxiray. 1970kii Master Barre wuxuu si rasmi ah u qaatay hanti wadaagga sayniska. 1970kii bangiyada, warshadaha waaweyn iyo ganacsiyada shisheeye ayaa la qarameeyey. qabyaaladda ayaa si rasmi ah loo mamnuucay. dadka waxaa la faray inay isugu yeeraan jaalle. Master Barre wuxuu doonayey inuu dalka ka saaro saboolnimada iyo jahliga. waxaa la sameeyey guddiyo heer gobol ah oo ay ku jiraan odayaasha qabaa'ilka. laakiin talisku wuxuu ahaa mid adag. National Security Service NSS ayaa la aasaasay 1970kii si loo dabagalo mucaaradka. cid kasta oo la tuhunsan yahay inay ka soo horjeedo kacaanka waa la xiri jiray ama la cadaadin jiray. 1972 waxaa la dilay Salaad Gabayre Kediye iyo saraakiil kale oo lagu eedeeyey inay qorsheynayeen afgambi. tani waxay ahayd bilowgii nadiifinta gudaha. tan iyo xornimada Soomaalidu waxay lahayd 4 farood oo kala duwan ama 4 qaab ay wax u qortaan. 21 Oktoobar 1972 golaha kacaanka ayaa si rasmi ah u doortay farta Laatiinka. waxaa bilaabmay ololihii ugu weynaa Afrika, ololihii wax akhriska 1973 ilaa 1975. macallimiin iyo arday ayaa loo diray miyiga. heerka aqoonta ayaa kor u kacday 5% ilaa waxay gaartay 70% sanad wax ka yar gudahood. waxaa la qoray buugaag, heeso iyo buug gacmeedyo Soomaali ah markii ugu horreysay. tani waxay ahayd guul weyn oo dalka ka dhigtay mid casri ah xagga waxbarashada. laakiin ololuhu waxaa la socday cadaadis siyaasadeed. wax kasta oo ka soo horjeeda kacaanka waa la mamnuucay. talisku wuxuu dhisay wadooyin waaweyn, isbitaallo iyo dugsiyo. 1974 Soomaaliya waxay noqotay waddankii ugu horreeyey ee aan Carab ahayn ee ku biira ururka Jaamacadda Carabta, taasoo keentay gargaar lacageed oo ka timid khaliijka. isla sanadkaasi waxay martigelisay shirkii ururka midowga Afrika. laakiin 1974 ilaa 1975 abaartii ugu xumeyd ee taariikhda casriga ah ayaa ku dhacday dalka. kumanaan xoolo ah ayaa dhintay. 100,000 oo qof ayaa qaxooti noqday. dowladdu waxay dejisay dadkii miyiga ku noolaa meelo cusub si ay u noqdaan beeraley ama kalluumaysato. xiriirka midowga Soviyeeti iyo Shiinaha ayaa la xoojiyey. 11 Janawari 1975 Master Siyaad Barre wuxuu ku dhawaaqay xeerkii qoyska oo siinaya haweenka xaquuq la mid ah ragga oo ay ka mid tahay dhaxalka iyo furiinka, taasoo ka soo horjeeday qodobada Qur'aanka. 16 Janawari culamo caan ah ayaa ka hadlay masaajidka Cabdulqaadir ee Muqdisho, iyagoo si cad u dhaleeceeyay sharcigaas. Sheekh Axmed Sheekh Maxamed Walaaleeye ayaa hogaaminayay NSS oo National Security Service ah ama hay'adda nabad sugidda. waxay si degdeg ah u qabatay culimadii iyo boqolaal taageerayaal ah. 18 ilaa 19 Janawari maxkamadda amniga qaranka ayaa maxkamadeeyey 10 sheekh ayaa lagu xukumay dil. 6 qofna waxaa lagu xukumay 30 sano oo xarig ah.
17 qofna waxaa lagu xukumay 20 sano oo xarig ah. 23 January 1975 tobankii culummada ayaa lagu toogtay iskool booliisiya Muqdisho. dhacdadan waxay ahayd mid naxdin leh oo muujisay iska hor imaadkii u dhaxeeyay hanti wadaagga sayniska iyo diinta Islaamka. dad badan ayaa ka xumaaday, laakiin talisku wuxuu ku adkaystay inay ahayd dembi siyaasadeed. 8 sano oo kacaan ah ayaa keenay horumar waxbarasho, dhismaha iyo midnimo qaran. laakiin waxaa la socday talis adag, cadaadis, toogashadii culummada 1975 iyo qabyaalad qarsoon. 1977 Soomaaliya waxay gashay dagaalkii ugu weynaa taariikhda, dagaalkii Itoobiya ee la gashay. sidee ayuu dagaalkaasi u beddelay wax waliba? maxaa dhacay intii xigtay? qaybta saddexaad, dagaalkii Itoobiya iyo dhammaadkii saaxiibadnimadii Soofiyeedka.